وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. waxaa maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyey tartanka xifdiga quraanka kariimka ee la magac baxay Utruja kaasoo loo qabto macallimiinta xifdiga quraanka kariimka ka dhigta madaarista kala duwan ee ku yaala magaalada Hargeysa. ku dhawaad 40 macallin oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa tartankani ka soo qayb qaatay kuwaasoo ku tartamayay 30 jis ee quraanka kariimka. tartankan oo soo qaban qaabiyaan masjidka Jaabir bin Cabdillaahi ee xaafadda Jigjigeer ee magaalada Hargeysa ayaa maanta munaasabad lagu abaalmarinaya macallimiintii kaalmaha hore ka soo galay tartankan oo muddo 5 sano ka soo socday masjidkani gaar ahaan bishan barakeysan Ramadaan ayaa sanadkani waxa lagu soo kordhiyay tartanka muqallidiinta kuwaasoo ku dhawaad 10 macallin ay ka qayb galayeen. haddaba munaasabad lagu abaalmarinayo macallimiintani ayaa maanta lagu qabtay masjidka Jaabir bin Cabdillaahi waxaana munaasabadani lagu soo casuumay qaar ka mid ah culimada waaweyn ee dalka waxgarad aqoon-yahano mas'uuliyiin iyo macallimiintii qiimaha badnaa ee isugu jiray rag iyo dumar kuwaasoo ka soo faa'iideystay tartanka Utruja. waxaana ugu horreyn baa munaasabadani faahfaahin dheeraada ka bixinaya maamulka masjidka Jaabir bin Cabdillaahi ahna guddida soo qaban qaabisa tartankani waa Sheekh Xasan Maxamed Cumar Xasan Jaabir waxaana ka warbixinaya tartankan iyo maraaxishii kala duwanaa ee uu soo maray iyo sanadkan macallimiinta ka qayb qaadanaysa. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ahdaafta ugu waaweyn ee aynu ugu talagalnay in musaabaqaadkan oo kale aynu waddanka ka qabanno waxa weeye maadaama mucallimiintu ay yihiin dadkii ardayda soo saarayay in ay helaan iyaguna dhiirigelintooda si xaqligan tacliimigay ku sii jiraan ay u sii wadaan maadaama oo musaabaqaadka faraha badan ee waddanka laga qabto ay ardayda ay u adeegaan in la helo musaabaqo mucallimiinta u adeegaysa. waxaan u aragnay inay daruuri tahay ilaahayna waa nagu guuleeyey waxaanan ilaahay weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu sidaa inoogu guuleeyo mar walba oo inu sidaa u qabanno iyada oo dabcan dardaaranadii ugu horreeyey oo sheekhyadu inoo soo jeediyeen musaabaqadii ugu horreysay markaynu qabannay aynu sii wadno mashaayiikhdeenna sheekh maxamed sheekh cumar iyo sheekh maxamed aadam oo markii aynu bilaabaynay nagu dhiirigeliyay inaan sii wadno sidii baan u sii wadnaa. sheekh maxamed allah ku barakeeyo ilaahayna waa noo fudaydiyey. sanadkii labaad ayaa hadda aynu ku jirnaa oo tamwiilka iyo dadka maalgeliyey musaabaqadu ay yihiin dad maxalliya oo waddankeenna ah. intii hore dad dibadda naga caawinayay laakiin iminka ilaahay subxaana wa tacaala dadkeennii ayuu noo suurtageliyey. marka musaabaqadani waxa ay maanta wadataa oo ag socda musaabaqo aan ugu talagalnay da'yarta inaan ku dhiirigelinno oo aan ilaa 10 aanu ka qaadnay dhagaysi mashaayikhda qur'aanka iyagoo isku ekaysiinaya. taasaa maanta ku cusub musaabaqadeenna laakiin sidii hore musaabaqatul Utruja waa sideedii weeyi. qaar ka mid ah macallimiintii qiimaha badnaa ee ka soo qayb qaatay tartanka Utruja ayaa iyaguna soo bandhigay bandhig aqooneed aad u qiimo badan. laa tamuddanna caynayka ilaa maa mattacnaa bihi azwaajan minhum ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
qaar ka mid a culimmadii iyo mas-uuliyiintii waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadani ayaa iyaguna kelmado munaasib kuwa ka soo jeediyey intii munaasabadu socotay waxaanay dardaaran u soo jeediyeen macallimiinta qiimaha badan ee ka soo qayb qaatay tartankani iyagoo ku dhiirigeliyey shaqada wanaagsan ee ay u hayaan bulshada islaamka ah waxaana mas-uuliyiintani hadalladoodii ka mid ahaa macallinka qur'aanka qiimo gaaruu leeyahay wax kale haddaan loo tarayn marka loo yeedho haddii jaanis uu hayo qofkii loo yeedhaa fursadda inuu ka faa'iidaysto oo uu macallinka kala soo qayb galo taasaanu idinku nimid waxaa runtii aan dareemaya halka ilaahay iyo rasuulkiisu idin dejiyey ahlu qur'aanow inaad dareensanaataan oo hoos aydaan uga dhicin ilaahay baa kor idiin qaaday ummadda yaa tukanaya iyo ummulqur'aana aqra'uuhum likitaabillaah marka halkaa la isugu yimaado fiqigiina isagoo yaqaanadii wixii uu dadka axkaamtii salaadana garanaya qofka qur'aanka ayaa ugu horraynaya haddii xabaal lagu wada aasayo qabri luxudka waxaa loo horraysiinayaa qofka qur'aanka kariimka ah xifdisan ama ka qur'aanka haya marba ka qur'aanka haya ayaa la horraysiinaya qur'aanka kariimka ah meelaha ilaahay uu dhigtay weelka ilaahay uu ku xifdistay qur'aankiisa waxa ka mid ah halkee laabtaadaasaa ka mid ah ahlu qur'aanow bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilma uutuu lcilmigii baa lagugu daray ahlu qur'aanow laabtaada hadduu qur'aan ku jiro ما كانوا بدرجة الإتقان الذي لمسناه في الدورات المتأخرة وفي كل سنة يزداد مستوى المعلمين أما في هذه السنة التي نحضر الآن حفلها فحقيقة يعجب الإنسان وينبهر من إتقان الأداء والحفظ والقراءة الصحيحة من المعلمين والمعلمات لا أبالغ إن قلت أن كثيرا من المعلمين والمعلمات قراءتهم لا تقل إتقانا عن أداء كبار المقرئين هذا الكلام ليس مبالغة وإنما عن ممارسة وتجربة وتتبع فحقيقة من المعلمين والمعلمات من كان يقرأ قراءة صحيحة سليمة تجعله في مصاف القراء المتقنين الكبار معلنكو وليبا قرآن كدغيا sida ogsoon tihiin ee uu nabigu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam waxa uu ka mid yahay ummadda kuwa ugu khayr badan waa qof kalaamkii ilaahay bartay dadkana baraya khayrukum man ta'allama alqur'aana wa 'allama markuu kaalinta taagan yahay isaguna waa inuu taa isku qanciyaa oo uu qaataa معلمكو قرآن كدغيا ee dhalinyarada xafiisinaya hawshiisu aad bay wadagtay qofka hawsha galay baa garanaya kalaamkii uu cuslaayo kii ilaahay baa la doonayaa qofka da'da yar ee aan ismaamuli karaynin inuu maskaxdiisa gaarsiiyo waliba ku adkeeyo marka ha loo ogaado hawsha adag ee miisaanka iyo mugale ee uu hayo sidaa daraaddeed waalidka iyo madaxda iyo mudanka kaleba waa in la isku barbar taago macallinka sidii loo geejin lahaa hawshiisa habka ugu fiican siduu dhammaystiri lahaa macallimiinta ehlul quraanka ee maanta halkan lagu abaalmarinayo baan kelmadda koowaad odhan doonaa adduunyada guudkeeda aadamaha maanta ku nool 7 bilyan iyo dheeraad qof weeye 2 bilyan waa maanta muslimiin in ku dhow haddana wax dheeray mararka qaarkood نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كي كسرنا هذا عثمان بن عفان كوريه وكي أها خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهلا معلمين تمان تهال كان لقوا على المرينا أنت كليه القرآن كا علماء ضبا وحقوق خير بدنتي لبدا بليان قف مسلمين تأدون كبوت كي سكونول حقوق خير بدنتي وكذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء وفضل يقدر شيء إلهي قفش عليه ونوصيه هل كان هلا قصي وذلك يفرق هين تا القرآن macallimiinta taasaan odhanaya dhalinyarada daayartaa waxaan leeyahay waqti iyo fursad baa maanta haysataan technology-ga markaad u eegto heerka maanta uu marayo sida aqoonta diiniga iyo sunnada nabiga iyo ahkaamta kale shariicada si fudud aad uga faa'iideysanayso inaad barato aqoontaada kor u qaado fursad aanay haysan
culimada maanta halka hareerahayga fadhidaa iyo kuwii ka sii horreeyeyba ayaa maanta haysataan technology-gu idin caawinayo markaa taasi baan leeyahay iyagana idinkana laga faa'iideysto waxyaabaha cajiibka ee aan yacnihii ay aadkay soo jirtay waxaa ka mid ahaa culimada oo Sheekh Jaabir ugu horeeya yacnihii labadii habeenimo markii intaajka u soo kacnay sidee u kacay ilaa maalintii dambe ishaygeedii sii jireen yacnihii iyagoo dhan kasta doonaya tartanka yacnihii in qiimihiisa iyo qiyamkiisa ay kor u qaadaan oo waxaan isweydiinay dee tiimkaygan ixtikaafka qaybo ka mid wareedhe wallaahi waa daalayni haddana daalka kama muuqdo Sheekh Jaabir wallaahi waxay ahayd dhiirigelin aad u wanaagsan marka dabcan waddaanu shakhsiyan waa sanadkii saddexaad ee aan ku soo beegmo runtiina markastaan ku soo beegmo waxaan dareemaa farxad weyn baan dareemaa yani ma soo koobi karo yani ma xataa kelmadahan waxaan ku sheegi kara maaha markii la soo gaadhay guniya gunaanadkii munaasabadani waxaa adida aad u qiimo badan lagu maamuusay macallimiintii kaalmaha hore ka soo galay tartankani kuwaasoo tiradoodu ahayd 10 macallin oo isugu jira gabdho iyo wiilal kuwaasoo lagu maamuusay hadiyado aad u qaaliya waxaa sidoo kale la maamuusay dhammaan macallimiintii qiimaha badnaa ee isugu jiray rag iyo dumar kuwaasoo ka soo qayb qaatay tartankan udruja ayaa ka mid ah tartanada naadirka kuwa geyga Soomaaliyeed kuwaasoo loo qabto macallimiinta Quraanka Kariimka Wahib Sariyaan warbaahinta nolosha Islaamka Hargeysa